Bismillah, Ismail Warsama Digital here. Wayn salaamay dhammaantiin. Ayaan dhexdeera waxaynu isla soo qaadnay daahfurnaanta la'aanta madaxda Soomaalida ee siyaasadeed. Waxaynu soo qaadnay wax walba guri mugdi ah in lagu samaynayo. hadday heshiis dowladda lala gala tahay, hadday tahay amuuraha waxaa la yidhaha public policy-ga maaragta marka la samaynayo, haddii go-aama la gaarayo, yacni waxaas oo dhan waa wax dadweynaha Soomaaliyeed ka qarsoon oo magaciisa lagu shaqaysanayo. madaxna looma dooran inta gurigooda tagaan inay qarsadaan hawlihii dadweynaha loo qabanayo. dhinaca dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaanu soo qaadnay arrintii Xaaji Dhagax, waxaanu soo qaadnay ciidamada la la'yahay oo marna la leeyahay Eritrea waxaa Tigray baa lagu xasuuqay, dagaalka Tigray, marna la leeyahay iyagaa wax xasuuqay oo dambiyo loo haysto dowladda Soomaalida. hadda waxaa la soo dambeysiyey fadeexo kale oo maxay tahay madaxweyne ama nin walba suu yaqaano madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa isaga qadar aaday. ma la socotaan sababtuu aaday qadar isagoo aan kaxaysan hal qof oo dowladda Soomaaliya ka tirsan? dabcan waana waxa qarsanaya. muxuu qarsanayaa weeye su-aasha. haddaba warkii baa soo baxay. waxaa la leeyahay ciidamada Eritrea la geeyey oo tababarka markii hore loo geeyey, waxaa ballan qaaday kharashkeeda inay bixiso dowladda Qatar. nasiib darro dowladdii Qatar kharashkii ma bixin Eritrea la siin lahaa oo tababarkaas ciidamada ay ballan qaaday in la geeyo Eritrea ciidamadii Soomaalida oo ay tababaraysay tababarkii markay u dhammaadeen oo xawaali 9 bilood ay ahayd tababarkii uu socdo, ciidamadii ilaa iyo hadda way haysataa Eritrea, curaar bay u haysataa. Qatar baan lacagtii bixin. Qatar ayaan lacagtii ay ballan qaaday oo tababarka ciidanka Soomaaliyeed oo Eritrea la geeyo aan lacagtii bixin. Isaas after workina ciidamadii Soomaalida halkaa la geeyey malaha intii dagaalkii lagu laayay Tigray maana intii kale curaar buu haystaa. waa sababta Farmaajo u tegay Qatar oo uu boqorka halkaas ama amiirka halkaas inuu kala soo hadlo in Eritrea lacagtii loo sii daayo si ciidamadii halkaa looga soo qaado oo Eritrea ay u sii dayso ciidamadii Soomaalida oo ku xaniban. ujeedadu waxa weeye ciidanka la soo deynayo oo maaragtay haddii Turki lacagta bixiso in lagu galo olole siyaasadeed oo doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo inta yacni boqolaal ciidamo Soomaali oo Eritrea ku xanibanaa lagu soo daayo. laakiin hadda maxay ku tahay ciidankii laftigiisa markuu yimaado soo war ka bixi maayo waxa ku dhacay. kuwa Eritrea la geeyey, kuwa la xasuuqay, kuwa curaarta loo haysto,
يعني waxaasoo dhan soo ma baxayaan hal nin lama socdo wasiirka arrimaha dibadda lama socdo cid kale lama socdo kuwa security-ga lama socdaan masawirada social mediaha kusoo baxay arkeen waa photo opportunity ninka safiirka halkaa ka ah in inta lagu masawiro markaa la adigu iska tagariyo waxaa isku haraynaa haddii la kuurayahay amiirka isku harayna arrintaasaa maaragtay waxyaalaha na waxa asaas u ah farmaajo oo goostay wax walba inuu meel mugdiya kala xaajooda adduunka iyo soomaalida lagama yaabo ninkaasu intuu meel soo farsano yiraahdo waxaasaan qabanaynaa waxaasaanu qabanay waxaasaanu maqlin lagama yaabo yani waxa la yiri nin hulaab xumi waxaad moodaa inuu wax qarsanayo farmaajo waa noocaas kale weeye kuwa kale oo dowlad goboleedyada iyaga ruucoodu khayr qabayaal maaha transparent ama madac fura iyaga ruucoodu waa saas oo kale waxbay qarsanayaan yani waa la yaabay madaxdii Soomaalida cudurka kambaas oo haysta oo wax qarsanayaan oo aysan dadka soo hor istaageen baa laga yaabayay waxay tahay waxa laga leeyahay war waxa kan waxa idinku leedihiin maaha waa wax dadweyne leeyahay hawlihii dadweynaha qarsanina ee banaanka Soolmo original Soomaalidu xalaal barqa la qashaa xalaal barqa la qashaa Soomaaliya dee banaanka soo dhiga wixii haddaydaa wax qarsanayn banaanka wixii soo dhiga hal la arko tala hal la idin siiyo يعني waa yaab weeye dadka noocaasa see dawlad u hantinaya intaasaan rabay maanta inaan idinla wadaago aad iyo aad baa umahadsantihiin waa idin salaamay Salam.